dalka Suudaan ayaa maalinba maalinka ka dambaysa waxa uu sii gelayaa xaalad dagaal oo aad iyo aad u cakiran iyadoo dadka nafadooda ay kala baxsanayaan goobaha colaadu ay ku sii fidayso oo ay u horeyso caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum. joogta madaafiicda culculus iyo qaraxyo waaweyn ayaa maanta oo Isniin ah laga maqlayay gudaha magaalada Khartoum. halka ciidamada iska soo horjeeda kuwa militariga ee sida gaarka u tababaran uu wato ninka gooni goosadka ee doonaya inuu dalka si Afgambiya ku qabsado iyo militariga qaranka ayaa ku dhex dagaalamaya weliha caasimadda Khartoum. dadka deegaanka Khartoum oo la hadlay waama ayaa u sheegay inay soo food saartay cabsi xoogan ayna doonayaan in nafsadooda ay halkaasi kala baxsadaan balse ayna garanaynin jiha ay u dhaqaaqaan maadaama dagaalka uu wada saameeyay dhammaan goobaha caafimaadka, waxbarashada iyo suuqyada laga adeegto intaba. kooxda ugu weyn maleeshiyaadka sida gaarka u tababaran ee dalka Suudaan ayaa Isniinta maanta oo sheegtay in ay qabsadeen qasriga madaxtooyada iyo guriga uu degan yahay taliyaha ciidamada militariga iyo garoonka weyn caasimadda Khartoum. talabadan ayaa u muuqata mid Afgambi ah laakiin militariga Suudaan ayaa sheegay in ay weli dagaal kula jiraan calooshoodu shaqaystayaasha doonaya in ay dalka geliyaan dagaal sokeeye oo sida hadalka u dhigeen. labada dhinac ayaa midba sheeganaya inuu gacanta ku hayo xarumaha muhiimka ah u ah dalka sida garoonka diyaaradaha iyo goobo kale, balse ma jirto cid ka madax bannaan oo arrinkaasi xaqiijisay. hase yeeshee dowladaha caalamka ay u horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa diraya baaqiyo isa soo taraya oo loogu baaqayo dhammaan dadka dagaalamaya inay iskugu yimaadaan miis korkiisa si ay uga wada hadlaan waxyaalaha ay isku haystaan. si kastaba ha ahaatee weli waxaa socda dagaal qaraar oo dhinacyadu ay isu adeegsanayaan hubabka noocyadooda kala duwan kuwa darandooriga u dhaco. xaaladda Khartoum ayaa hadeeraan idin hadlayno allow sahal amuuraha. si kastaba ha ahaatee wafdi la rajeynaya in ay tagaan dalka Suudaan ugu horeeyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Samoei Ruto iyo midka Southern Sudan ay dariska yihiin Khartoum ee Salva Kiir ayaa ilaa hadeer aan caga dhiganin dalka Suudaan oo la doonaya in ay halkaasi ka qabtaan wada hadal ama dhexdhexaadin u dhaxayso militariga dhexdiisa ee isqalaafsay dagaalka xooggan iskaga soo horjeeda. hase ahaatee warbixino soo gaaraya waama ay sheegayaan in dad aad u tiro badan ay ka qaxeen gudaha waddanka Suudaan kuwaasoo ku dhowaad gaaraya ilaa 500,000 oo qof halka dhimashadu ay gaarayso 210 qof ee u dhaxeeya dhinacyada dagaalamay. dadka shacabka qudooda ayaa halkaasi waxaa ka soo gaaray dhibaato xooggan oo ay ugu horeyso dhimasho iyo dhaawac walow isbitaalada caafimaadka halkaasi ay wada xiran yihiin iyo goobaha waxbarasho. dadka qaar ayaa ku andacoonayo malaha gargaar caafimaad iyo mid biyo intaba oo loo keenay dadka Suudaan ayadoo weli dagaalku maalinba maalinka ka dambayso uu sii gaarayo meesha ugu xun. gulufkani colaadeed ee ka dhex qarxay dalka Suudaan ayaan ahayn mid hore loo sii saadaalinay balse ciidamadani ayaa weli dagaalka ku sidayo. hadda si adigu maxay kula tahay?